dadka intooda badani waxay ka baqaan halista waayeelnimada iyo inay si degdeg ah u gaboobaan laakiin xaqiiqdii dad badani waxay saameeyeen caadooyin khalad ah oo horseedi kara calaamadaha da'da mid ka mid ah bogagga caafimaadka ayaa soo bandhigay 10 dabeecadood oo soo dedejin kara da'da iyadoo dadkana lagula taliyay inay iska ilaaliyaan intii suurtagal ah waxaana ugu horeeya walaaca iyo isku buuqa caadooyinkani waxay saameeyeen geedi socodka jirka iyo kiimikada jirka waxayna daciifiyaan unugyada xakameeya wax soo saarka tamarta jirka iyo caafimaadka kalinimada xiriirka bulshada waa muhiim wuxuuna caawiyaa gacan ka geystaa dib u cusboonaysiinta howlaha maskaxda halka isgoodoominta iyo in qofku iska takooro bulshada dhexdeedana ay sababayso hoos u dhaca garashada iyo niyadjabka maskaxeed waxayna sidoo kale qofka u soo jiidi kartaa saameyn aan wanaagsaneyn iyo xaalad nafsi ah duxda ama baruurta cuntooyinka dufanku ku badan yahay iyo sokortuba waxay u badan tahay inay soo dedejiyaan fursadaha lagu qaadi karo cudurrada wadnaha iyo xididada halbowlayaasha marka lagu daro culayska qofka ee sii kordhaya iyo dhibaatada dhaqdhaqaaq la'aanta jirka waxaa lagu talinayaa haddaba in diiradda la saaro cuntooyinka caafimaadka leh sida khudradda miraha kalluunka iyo wixii la mid ah kuwaasoo looga faa'iidaysanayo maqaarka iyo xoojinta shaqooyinka jirka dhafarka habeenkii khubarada caafimaadku waxay tilmaamaan dhafarku xitaa habeenkii haddii uu soo gaaro xilli dambe in uu yahay mid ka mid ah caadooyinka ugu waxyeelada badan ee keenaya astaamaha hore ee da'da waxaana dhafarku u saameeyaa maqaarka wuxuuna muuqaalka guud ee qofka iyo midabka jirkaba ka dhigayaa mid dilan gaar ahaan hareeraha indhaha oo laga dareemayo ilgo iyo daal sigaar cabid waxay leedahay caadadani cawaaqib badan oo ku saabsan caafimaadka bini'aadamka sida saamayntiisa xun ee caafimaad ee xagga samabada maqaarka iyo ilkaha iyo xitaa guud ahaan muuqaalka guud ee qofka caajisnimada dadkan jimicsiga samayni waxay u badan tahay inay dareemaan caajis maadaama ay ku adag tahay inay ku dadaalaan waxqabad kasta waxaa la ogyahay in caajisnimada iyo fadhiga wakhtiga dheerba ay keenayso miisaanka qofka oo kordha maqaarka daryeelaanta maqaarku waa mid ka mid ah khaladaadka ugu caansan ee ay sameeyaan dad badan oo lid ku ah naftooda gaar ahaan dumarka oo sida la sheego dayacaya xanuunada maqaarka ka soo wajaha iyo weliba sidoo kale meydhla'aanta wejiga kadib marka la mariyo waxyaabaha la isku qurxiyo ee kosmaatiga ah gaar ahaan waxyaabaha lagu huuriyo maqaarka u seexasho dhanka wejiga waa caado xun oo burbursa caafimaadka maqaarka waxayna u horseedaa isbeddel degdeg ah oo ku yimaada muuqaalka lakabyada wejiga taasoo nudayaasha maqaarka u beddesha mid daciifa dadka ay caadada u tahay habkani waxaa lagula talinayaa inay u seexdaan dhanka dhabarka oo ay iska ilaaliyaan inay u seexdaan wejiga intii suurtagal ah heerkulka sarreeya marka heerkulka guriga uu sarreeyo tani waxay keenaysaa in la soo nuugo qoyaanka hawada taasoo lafteedu keenaysa in maqaarku uu qalalo sababtana bilowga calaamadaha hore ee gabowga ama daada fadhiga aan habboonayn fadhiga booska qaldan markaad shaqaynayso amaad isticmaalayso telefoonka ayaa sababta dhibaatooyin ku dhaca xubnaha iyo weliba sidoo kale xanuun dhabarka oo dhan ah waxay sidoo kale keeni kartaa ayay leeyihiin khubaradu taasi soo godasho dhanka dhabarka iyo soo bixitaanka garbaha